wafti ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Khaatumo Maxamed Jaamac Ndasheel ayna kamid ahaayeen qaar kamid ah golaha wasiirada maamulkaasi ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda maamulka Khaatumo ee Taleex boqolaal dadweyne ah oo reer Taleex waftigan oo soo dhaweyntooda loo kala harin ayaa loo galbiyay dhanka magaalada Taleex ilaahay baa mahad ku dayashada nabiga alayhi salaatu wasalaam horta inuu ilaahay ka yaabo وقت كفاية نبي قال مصلين عليه الصلاة والسلام إذا لما لا عبر باتجنا إذا بعد خلنا سفر نبارو كنا بيا وسوق قابل إنه يوحي هذا لا يسوريسي وين كلا قادم دون حد الله يبارك مدة نسمع قنين مركو هنا وكما سنتين سود دويت تقرح البضانة قاية عليه هذه أتبدو ما سنتين يضل حلو تشيله العيد ويكونوش إلا تاجي هيك إن هذا أنت بحياة تقول قادتين هذا النجار نوصل عادي أبدا وكما سنتين أو حتى لح الواقع برتين محايا هايتي مركي حكتي مدة يمكن نور بلوضة وكم قلنا تجان كوا هتبي كده ليه مركي هورنا أول شقة ما من الفدين تهيدون نجاشة سنة إلى سنة قالوا صعني مركي دمنا محايا هايتي اللي نجوسوا دولي حد قريبة كمية تجان كهورنا اللي نجوسوا دولينا هتبي كده ليه كهول قلقي مركي دمنا باب اللي نعكلا نكون مقلين هدي الله يدمه نحوها وقت قالها يهوش على هاي هتبي كده ليه هي مقلاشها انت عليك لكن وحنو مقلين تن دنتيده يكون كله خاتمه دجان خاتمه وكله دنتيده بانو مقلين هولو ما نوغو مقلين عندنا فسح مادن عندنا تمشلكم سو مقلين هذه ويشران دي dadku qaar hadii bidxaday doonaan hadii kale si kale wuxuu dhigo oo maxay ahayd leh ii sheegay Taleex waa laga guur Taleex dicdina ka guur karmayso kana waa caasimadeeni waa xudunteeni ilaa iyo 100 sanadood biyada xudunteena 100 sano soo socotan iyada xudunina oo ahaanaysa markaas bushaara insha Allah hadaynu magaalo madaxdeena xoreyno mar walba magaalo madaxda labaad waatan mar walba hadeen markaynu la saarno xoreynateen labaad tan bay noqonaysaa dib kale oo waa halkii xudunta Khaatumo ay ku dhalatay ee ku aasasantay iyada weeyaan iyadun baana ka asala marka lagu bushaaraysto hawlaha aanu maqleen badidoodu waa loo soo dhamaadeen wafdi ballaaran oo dawladda iyo odayaalba ka kooban baan hadii kale ku nimi waxaanu ku soo noqoshada deegaanka kan looga talinayay maxay ahayd maamulka Khaatumo ka sokow وإنه خبر هنا شرب النوار هدي بكي هاتف فوق بصومي دون هدي لها وأود اللي يدمو وإنه كوضا قيب قادن دون هدي الله يدمو سيدي عين كوي هربا وقوضا قيب قادن سيدا معناها لأوغا صوب حني هدي بكي دلي هاي إن أينو محايا تكن أغمرنا لأنه شركة كان صعدنا وحال الله يقول باينو مقن عندهم ويحروبيسا والله سعرض ويحروبيسا وانت كشيشي سو دمي انت حق uga sokaysaabo way xoroobayaan waa sidii ilaahay looga bartay way xoroobayaan macay maamulkeena isiguna sidii sibu taabagalay oo dhaqaaqay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxa soo gaaray magaalada Taleex xarunta kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka Khaatumo madaxweynaha dawlad goboleedka Khaatumo mudane Maxamed Yuusuf Jaamac iyo wafdi uu hogaaminayo ay kamid yihiin wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah wasiir ku xigeenka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah wasiir ku xigeenka maaliyadda agaasimayaal guud wasiir ku xigeenka horumarinta iyo khayraadka dabiiciga Ibrahim Guure wafdigan oo ka soo kicimay gobolka Cayn isla markaana muddo ugu maqnaa safar shaqo imaatinkooda caasimadu waxa weeyaan shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa ee halka ka socday in xukuumaddu ku soo noqoto iyo muujinta shirka ay isugu imanayaan golayaasha Khaatumo bishan soo socota horaanteeda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo